Odayaasha dhaqan ee beelaha Gadabuursi oo si weyn ula hadlay shacabkooda ayaa markan ka dalbaday shacabka oo iskugu jira dhalinyaro, haween iyo ragba markan in loo dulqaato intay odayaashu arrinta wadaan ee ay bislaynayaan. Waxayse odayaashu ku kordhigteen haddii ay wax xumeeyaan inay la xisaabtamaan, balse iyadoon go'aan weli soo bixin in ay ka sii qeyliyaan ama se ay ka hadlaan inay tahay arrin aan wanaagsanayn. Suldaan Cabdiraxmaan Dhawal ayaa sheegay arrimahan xilli uu ka hor hadlayay shacab fara badan oo dareen ka muujinayay aragtida ay arrimahan ka qabaan. Sidoo kale waxa uu suldaanku sheegay in loo baahan yahay arrimaha in faraha looga qaado cuqaasha, salaadiinta, ninguurtiga iyo dhammaan haldoorka kala duwan ee bulshadaas oo iyagu go'aan fiican ka gaadhi doona. Maalinimadka Sabtida ee Beritoole ayaa si weyn loo filayaa go'aankii kama dambaysta ahaa ee odayaasha dhaqan ee beelaha Gadabuursi ay ka gaadhi lahaayeen arrimaha ku xeeran ama se ku xayndaaban gobolka Awdal iyo Sanaag. Waxayse ahayd go'aan aad u adag marka la eego qadiyaddu heerka ay gaadhay iyo sida markan isha loogu hayo. Xukuumadda Somaliland ayaa hore go'aan u soo saartay kaas oo farxad gelin oosha kale ee markan ka soo horjeeda isla ooshan odayaasheedu ay xilligan u kordhiganayaan bulshadii ay ku metelayeen hanaanka dhaqan ahaan, oo ay markan u sheegayaan in loo baahan yahay inay faraha uga qaadaan talada iyo weliba masiirka bulshadaas, iyaguna aanay meel xun dhigi doonin ee ay dhigi doonaan meeshii ugu wanaagsanayd, aragti ahaanna ay u gudbin doonaan darajada ugu sarreysa ee la gaadhsiiyo shacabka. Waxayse sheegeen inay metelayaan dareenkoodii, sidoo kalena aanay jirin laba dareen iyo laba qadiyadood oo ay kala xambaarsan yihiin bulshada iyo cuqaasha, salaadiinta iyo haldoorka dhaqanka ee beeshaasi ee ay leeyihiin hal dareen oo keliya, dareenkana ay kaga jawaab celinayaan doonis guud oo ay wada leeyihiin markan bulshadaasi kana dhex guuxaysa maankooda iyo miirkooda, balse lagu simo waqtiga iyo sida ay u gaadhayaan. Tan iyo maalinnimadkii Isniinta ahayd waxaa soo baxay warar waaweyn oo si weyn guux u dhaliyay, kuwaas ah inay xukuumadda Somaliland heshiis iyo is-afgarad la gaadhay duubabka dhaqanka beesha Ciise oo ay dhexdhexaadisay dowladda Jabuuti oo markan iyadu doonaysay si nabadgelyo oo aan buuq ahayn in loo qabto xafladda soo soconaysa 3 cisho oo ah 5 bisha Diseembar ilaa 8 bisha Diseembar. Inkastoo xukuumadda Somaliland sheegtay muddada in iyadu dib ka sheegi doonto xilliga heshiiska iyo waqtiga gogosha oo uu metelayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo ah ninkii hore u diiday amase mudanihii hore uga gowsaday xeerkaas sida weyn markan doonistiisa ay u doonisay beesha kale amase oosha kale inay qabato oo ay ku qabato isla magaaladaas. Wax walibana waxay isbedeleen markii warkaasi ay soo tabiyeen xubno ka tirsan dowladda oo ah xasaanadlayaal ka tirsan 3 dhadhaar ee dowladdu ka kooban tahay, gaar ahaan qaybta sharci dejinta oo noqonaya xildhibaano, kuwaas oo wararka bannaanka ay u soo saareen ay noqdeen dareen iyo guux ay ka muujiyeen doorka xukuumaddu ka qaadatay arrintan iyo inaan la aqbali karin go'aankeedii hore inay ka laabato. Odayaasha dhaqan ee beelaha Gadabuursi ayaa shacabkooda u sheegay in loo baahan yahay in loo kaadiyo, ugu dambeynna laga maqlo afka dowladda inuu ka soo baxo go'aanka ay qaadatay, balse ka hor aan marka hore lagu go'aan qaadan waxaan dowladda laga maqlin. Hase ahaatee warku ma ahayn mid qarsoon oo maalinimadkii Salaasada ahayd ayaa gobolka Awdal caasimadiisa Boorame loo diray xubno wasiirro iyo madax iskugu jira oo ka soo jeeda isla gobolkaas, kuwaas oo waday wadahadal ay doonayaan inay la galaan odayaasha dhaqanka gobolka Awdal oo ay markan ku metelayaan xukuumadda si weynna markan ay u doonayaan isku soo dhowaan in la sameeyo. 2 cisho oo fowda la istaray oo ay ugu dambeysay shalay tolo wax go'aano cadi kama soo bixin ilaa loo ballamay maalinimadka Sabtida inay ku dhawaaqi doonaan odayaasha iyo duubabka dhaqanka ee beesha Gadabuursi go'aankii ugu dambeeyay ay ka qaadatay arrintaas, iyadoo dadaallo fara badan lagu bixiyay sidii codku u noqon lahaa mid taageeraya nabadda, sidoo kalena looga ilaalin lahaa bulshada labada gees mid kastaba kicitaan. Marka xaaladdan culeyskeeda la arkana, miisaanka ugu culus wuxuu dul saaran yahay odayaasha dhaqan ee beesha Gadabuursi oo iyagu dareemaya cadaadis iyo culays weyn oo haddii ay ku dhawaaqaan inay oggolaadeen wixii muddada dheer ka hor ay diideen dadkooduna ku taageereen ay noqon karto kacdoon bulsho oo iyaga lagu bilaabo inay la kulmaan, iyo sidoo kale cadaadisyada kaga imanaya xagga dowladaha kala duwan sida Jamhuuriyadda Somaliland iyo Jabuuti oo doorkeeda ciyaaraysa. Dowlad deegaanku ka maqna waxaasoo dhanina waxa ay caddaynayaan culayska ugu sarreeya hawshan inuu dusha ka saaran yahay odayaasha dhaqan ee beeshaas oo waajahaysa culayskii ugu dambeeyay iyo cadaadiskii ugu sarreeyay la odhan karo
waa tii ugu adkayd ee laga diiwaan geliyo maadaama oo muddada intaa leeg ay arrintani soo jiitamaysay. odayaasha ciise iyo gandayaashoodu waxay ku noqdeen halkii ay shirka maalintii hore kaga dhawaaqeen, iyagoo doonistoodu tahay in go'aanada la iswaafajiyo kadibna guddidii qabanqaabada shirka ay soo geliyaan. taa beddelkeeda se ma ogin qorshaha kale oo u degan oo waxba kama sheegi karno. waxase aynu ognahay inay si weyn u diiday bilowgii hore go'aankii ka soo baxay Somaliland. sidoo kale filashada laga qabi karo maalinta beriya iyo go'aanada odayaasha beelweynta Gadabuursi ayaa iyaduna noqon kartaa mid jihaysa ama si jiha kale iyo weji kale u sameysay xiisadda iyo xaaladda xilligan laga filan karo waxa ka taagan ama se ka socda. miidiyuhu macna ahaan ma turjubi karayaan xiisadda dhabta marka loo eego culayska laga dareemayo hoolalka shirka ama se goobaha ay fooda isku dirayaan odayaasha gobolka oo ah shakhsiyaad iyaga laftigoodu aragtidooda shakhsiga mid waliba uu ku hubaysan yahay, welibana aan laga reebin xagga caadifada oo qof kastoo bini'aadani waxa uu la nool yahay caadifad isaga gaar u ah oo uu ku dareen qaadan karayo sida ay iskula jaan qaadi karto caadifadooda ama se dareenkooda iyo shucuurta ay ka qaadan karayaan arrintan. oo markan la waafajiyay dareenka bulshada ay ku metelaan dhaqan ahaan ayaa iyaduna noqon kartaa waxaan farxad gelin dowladda iyo wax farxad gelisa dowladda oo aan farxad gelin dadkooda. wayse dhici kartaa in dadkana wax la fahansiiyo lana qanciyo iyo in dowladda wax la fahansiiyo la qanciyo iyo inaan laga shaqeeyo sidii aanay meesha nabadgeliyo darro uga dhici lahayn iyadoo la qaadan karayo jidka nabadgelyada. wax kasta se waxa jaangoyn doona waqtiga iyo maalinta beriya waxa ka soo baxee. waa kan Suldaan Cabdiraxmaan Dawan oo isagu la hadlaya qaybo ka mid ah bulshada maruu hortagay oo fahansiinaya in loo baahan yahay inay sameeyaan tanaasul iyo inay ku simaan talada in iyagu go'aan ka gaaraan intii ay darafka qabsan lahaayeen madal kasta iyo goob kasta ay ku arkaan ay ka weydiin lahaayeen su'aal. markan looga baahan yahay go'aanada soo baxa ee ay soo saaraan odayaashu inay ku qancaan. sidoo kale waxa uu sheegay inaanay jirin waxa iyaga ka khaldeen talaahan haddii ay jiraanna imika inuu tuu hortaagan yahay u sheegaan. waxayse bulshadaasi ugu markhaati furday inaanay jirin waxay ka khaldeen oo ay wataan ama se taageersan yihiin, balse loo baahan yahay inay balwax ogaadaan halka marayaan. waxaase uu sheegay in wax waliba ay ogaan doonaan saacadaha soo socda. laba qadiyadood mana hal qadiyadaynu wada leenahay. xilka ragga u diibatana waa kuwan ما هيسا وان هينا وان دم هيسا رود داية عندك مركان اللي يقدر إنه يمد رود داية شكل عمل أنا ذا هدي عندك عن النور ده وأنا هو شوادي كانوا ويو يوم مريرين لكن marka wax xumayno ayaa la yiraahdaa waxaad xumaysay soo baxday ma haysa waxaan xumaynay wana santiin salaadii sayga dabaynaysa waxa way hawsha waa ku jirnaa waa wada wax lama keenin waxaan qaadi mayno way